نستعين على أمور الدين والدين marka hore dhamaan waxaan salaamayaa madaxda dhaqameedka halkan iskugu yimi iyo madaxda masnaca runtii majmacan Kuweydiga saddex qodob oo yaryar baan runtii ka hadlaya mid waa mahadnaq midna runtii waxa weeye masnaca iyo waxqabadkiisa midna runtii waa dadka ka hadlaya TV-yada runtii mahadnaq haddaan ugu horeysiyo Ilaaha Casa wa Jalla runtii ayaa mahad iska leh amnigeena siiyay iimaankeena siiyay iskugu keenay goobahan runtii barakaysanay agooma lagu hayo Ilaahaas marka ugu horeyso mahadnaqaya marlamaadka waxaan mahadnaqayaa runtii masnacan cidii soo dhistay iyo runtii cidii hawl ka geysatay iyo hogaamiyayaasha runtii masnacan habeen iyo maalin u taagan agoomahan runtii Ibrahim Guure odayga ugu horeeyo Sultan Salman ku xigo runtii waxaan leenahay Ilaahay ka tusaysiyo habeen iyo maalin beheeganka ugu jira hawshan masnaca agoomaha mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa runtii xukuumadda Somaliland haday tahay xukuumaddii hore cagaha u joojisay xukuumaddii Axmed Maxamuud Siiraayo oo hawl badan ka gashay sidii runtii masnacan cagaha isku taagi lahaa runtii iyo xukuumaddan Muuse Biixi Cabdi oo runtii weerarkii ugu badnaa inta lagu soo qaaday runtii ay ahayd intii xukuumaddan jirtay oo Ilaahay khayr rasiye madaxweynaha maanta jooga Muuse Biixi Cabdi oo dhidibada isugu taagay sida uga dhicin lahaa runtii cadawga agoomaha ku soo duulaya saacad walba ee ganacsi ka deeya agoomaha iyo runtii hawlaha yaryar ama dhaqaatiir ha noqoto ama beer ha noqoto ama roodhi ha noqoto runtii lagu kabayo in agoomahooda dadka had iyo goraale ku soo duulaya sida madaxweynuhu mar walba had iyo goraale heeganka ugu yahay waxaan leenahay madaxweyne Ilaahay ka tusaysiyo runtii waxaan aaminsanahay haddaanay masnaca quruxda leh ee intaas oo agoomad wax ka baranayso ee intaas oo shaqaaliyi joogto ee intaas oo ganacsi laga soo saarayo ee iyaga lagu kabayo ama dhakhtar ha noqoto ama beeraha ha noqoto ama ha noqoto masnacan kale ee alaabtan furniture-ka noocaas runtii haddaanay xukuumadda reer Somaliland aanay garab taagnay waxay la tahay in dadkan waxba u ogolaadeen agoomaha runtii waxa cadeynaysa in ay dadku agoomaha waxba u ogolaadeen sida waagi bariba xukuumaddu uga hor taagan tahay ay doonayaan ama dhakhtar ha noqoto lagu dabiibayo ama waxa ka soo baxay lagu daweynayo iyaga ama beerihii wax ka soo baxay inay waxna ka cunayeen waxna lagu iibinayay inay mar walba xukuumaddu ka hor taagantay aad iyo aad baan leenahay madaxweynaha Ilaahay ka tusaysiyo ee inta xilka hayso iyo inta nolosha u taagno madaxweyne sida aad imika u taagan tahay baan ku leenahay runtii annaguna waa ku garab taaganahay runtii had iyo goraale masnacan agoomaha dad baa had iyo goraale iskaga soo duula markan masnaca ka sheekeeyo wallaan ku dhaartay anigu dadka ku dhowdhow baan ahay runtii had iyo goraale haddaad aragto madaxweyne waad aragtay waan filayaa dhulka seexdaan agoomahaas waxay cunayaan labiskooda sida wax loogu dhigo sida guryaha loo keenayo Jimcaha iyo Khamiista sida looga soo qaadayo runtii qaar badan oo aabayaashood nool yihiin ayaan daryeelka qabin waxay ku qabaana waa waxa loo soo saarayo iyo wixii Ilaahay dad muxsiniina ka siiyo runtii hadeynaan wax ku tareen waxaan leeyahay dadweynaha reer Somaliland aan dhibta ka deyno agoomaha oo aynu runtii Ilaahay kaga baqano waxaan leeyahay cidda wax ka sheegaysa markan u sii gudbo runtii waxa biilinaysan naftiina biilinaysan iyo qaar aabayaal ah u tihiin oo u nooshihiin kuwa halkan lagu biilinayaa waa qaar aan aabayaashood nooleyn iilka ay ku jiraan Ilaahay u soo diray ummadda biilinaysa iyo xukuumadda gaarka ka haysa mar hore caga dhulka uga qaadi leeyahay iyo runtii Ilaahay runtii jasaay kaga doonaya iyo dadka inta garab taagan ayaa runtii garab kaga doonaysa waxaan leeyahay Ilaahay dib ugu noqda toobad keena ubadkiina u tura naftiina u tura arsaaqada Ilaahay way badantay raxmaanka aamina arsaaqada raxmaanka qaybiya inta Kuweydigu soo saaraya maaha inta agoomaa lagu biilinaya maaha arsaaqada Ilaahay way ka badantay mid ka badan Ilaahay weydiista hayeegina agoomaa waxa lagu biilinayo madaxweynaha waxaan leeyahay runtii Ilaahay ku garab galo sida aad u garab taagan tahay adiga xukuumaddaadu iyo wasiirka arrimaha gudaha dhowrashka taloola tagay waxaan leeyahay Ilaahay idin garab garo gaadhka hayo masnaca agoomaheeni baa ku jira ummadda reer Somaliland waxaan ku soo gabagabaynayaa ayaan leeyahay Sultan Salman wuxuu ka sheekeeyay in Djibouti masnacan inaga soo horeeyay lagu soo hogaamiyay
in badan la diidanaa in la keeno amni maaha la lahaa runtii iminka waa la arkay xukuumaddoodiiba cagaa u joojisay gaadh ka haysa waxaan leeyahay sidii uu Salmaan sheegayey ee uu lahaa magaalo walo Jabuutiyaba waa laga dhisay markii la arkay sida loo soo dhaweeyay iyo sida wax loola qabanayo iyo sida gaadhka looga hayo magaalo walba waa laga dhisay buu Sultan Salmaan waxaan leeyahay sidii magaalo walba la inooga dhisi laascaanood waa la dhagax dhigay burco waa socdaan sidii Gabiile boorama uu ka sameysay Gabiile Oodweyne Berbera meel walo kalaba sidii la inoogu dhisi lahaa iyo ceer gaababa aynu falowgeed qabanno oo aynu gacmaha qabanno ka horeeya hadaynu cunaa iskaga duubno oo xabada furina agoomaa la siinayo eegno oo sariirta la sameeynayo eegno oo runtii xabada khudrada eegno waxay la tahay kuwii soo sameeyayna way mooraaltabayaan kuwa halkan inoogu jiraana waxay u dhimanayaan baahi inaan caruurtiin baahi u dhimano ilaahay magaranaysa idin habaari mayne ilaahay risq idin koriye nabadgeliya ayaanu idin leenahay waxa kaliya ku soo gabagabeynaya waxa weeye runtii in masnaceen waa masnac barakaysan ummadda reer Soomaaliland oo dhan ba ku jirta in sida aynu garab taagan waxaan aad iyo aad maanta ugu sii mahadnaqaya oo farxad gooniye ah runtii madax dhaqameedkii Hargeysa waqooyigeeda iyo hawdkeeda iyo barigeeda iyo galbeedkeedu ay ugu dhan yihiin taageerada ay la garab taagayeen madaxweyne مصنعي أدقون هذا هيلين سي أدقارك كهي سي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته